kulan wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiin meel walba aad joogtaan soo dhowaada mar kale si gaar ah warbixinadeenu waxa ay daaran yihiin maalmahan haddii guula saamaxo wararka ugu dambeeya dhacdooyinka Soomaaliya iyo weliba deegaanada kale ku xeeran haddii ay noqon lahayd Itoobiya iyo weliba dalka Kenya oo xaaladeedu ilaa iyo haatan ay murugsan tahay doorashadii lagu dhawaaqay balse warbixintan waxa si gaar ah ku eegi doonaa haddii guula saamaxo weerar toos ah oo lagu qaaday madaxweynaha ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar iyo weliba ku-xigeenkiisa xilli safar ay markaasi ku socdaalayeen dhanka iyo gobolka City iyadoona weerarkan uu kaga yimid dhalinyaro hubaysan oo markaasi deegaanka waxaana ilaa iyo haatan la saadaalin karin halka weerarkaasi laga abaabulay iyo weliba waxyaabaha uu daaran yahay iyadoo la ogsoonaa in dowlad deegaanka Soomaalidu ay markaasi wajahayeen dhibaatooyin kooxaha kala duwan ee argagixisada ka dagaalama deegaanadaasi ay ku hayeen ciidamada fardo uulya lagu naaneysay liyu booliskuna ay ahaayeen kuwa iyagu markaasi si gaar ah uga feejignaa weerarada la soo tabinayay iyadoona dhanka kale dagaalo uu kaga furnaa dhanka iyo ismaamulka Canfarta oo Soomaalidu inta badan dagaalo faraha looga gubtay ay markaasi ku dhex marayeen waxaa mar kale la sheegayaa in ismaamulka Canfarta ay wadaan dadaalo lagaga soo horjeedo safarka Mustafa Maxamed Cagjar iyadoo la ogsoon yahay in gobolka City intiisa badan ay gacanta ku dhigeen ciidamada Canfarta kuwa oo dagaalo la galay liyu booliska Soomaalida waxaana halkaasi ku barakacay dad aad u tiro badan iyadoona inta badan ay markaasi dadkan ahaayeen kuwa ka barakacay deegaanada markaasi xuduuda ay la leedahay dowlad deegaanka ismaamulka Canfarta iyadoona gobolka City uu dhaco galbeedka dowlad deegaanka Soomaalida oo ku yaala cirifka markaasi ismaamulka waxaana jirta arrimo la xiriira dadaalo waan oo ka soconayay sidii loo xalin lahaa arrimahaasi ayaa haddana waxaa jira nin mar kale banaanbax iyo weliba rabshado lagu sameynayo madaxweynaha xilli safar uu ku tagayo haddaba inta badan warbixinteena waxaa si gaar ah ugu eegi doonaa wararkaasi iyo weliba taariikhda guud ee markaasi arrimaha Canfarta iyo weliba Soomaalida dowlad deegaanka kuwa oo inta badan dagaalo ku dhex maro iyadoona la ogsoon yahay in qaybo kamid ah dhulka Canfartu ay haysato la siiyay dowlad deegaanka Anirahde inta badan ay haysato Canfarta uu bixiyay madaxweynihii hore ismaamulka Cabdi Maxamuud Cumar ka oo isagu xilligan xabsiga ku jira kadib markii uu fulin waayay danaha dowladda federaalka Itoobiya balse si kalena loo keenay inuu maamulo dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cagjar ka oo markii hore ku yimid kusimaha madaxweynaha laakiin madaxweynaha rasmiga ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida shacabka ku nool gobolka City ayaa inta badan ka hadlayay arrimaha iyadoona duqeyda ku nool deegaanadu ay sheegayeen in markaasi rabshadaha dhalinyaradu ay sameeyeen ay markaasi yihiin kuwa xal laga gaari karo haddaba faahfaahinta ayaan eegi doonaa waxa stuudiyaha igula sugan Gambi oo inta badan markaasi arrimahan la xiriira oo ishana ku hayay dhacdooyinka dowlad deegaanka iyo weliba xaalka guud sida uu yahay xilligan iyo sababta keentay in madaxweynaha dowlad deegaanka la weeraro isaga iyo ku-xigeenkiisa xilli ay ugu socdeen soo indhiindheynta iyo weliba xaalka guud ee gobolka City soo dhawow mar kale xaaladda guud waa sidee maxaase keenay arrimahan markaasi laga soo warinayo ee dhiilada ah dowlad deegaanka Soomaalida Axmed aad baad u mahadsantahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo wafdi uu hogaaminayo oo hata uu kamid yahay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sidii la wada ogsoonaa maalimada shalay waxay safar ugu baxeen gobolka City ayagoo sii maray ismaamulka Diridhaba hase yeeshee madaxweynaha safartiisa ayaa ku soo beegmaysa xilli uu khilaaf aad u weyn ka jiro gobolka City oo siyaasiyiinta iyo dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolkaasi iyo deegaanka Canfarta oo intooda badan ayagu Canfarta ay hadda gacanta ku dhigeen deegaanada loo yaqaan Garbaciise, Candhuufo, Cadayto, dal la helay deegaano aad u tiro badan ay ciidamada Canfarta ay gacanta ku dhigeen ayaa madaxweynaha culayska siyaasadeed halkaas ka qayl dhaanta ay wadaan bulshada gobolkaasi ka soo jeeda iyo siyaasiyiinta heer federaal ku sugan ee deegaankaasi u dhalatay ayaa madaxweynuhu inuu baxo oo gobolkaasi u boodo oo xaaladda dhabta ka jirta iyo barakacayaasha ka soo cararay weerarka Canfarta iyo gobolkaasi madaxweynuhu aaday وهجاج بل محاكينيا إن سوماليدو أو لوكسوية إن عفرتو دجال بدن أي مركز لجلين ديجانو أدو ترى بدن وقبل كسيتي كتير سنة لقى قبصدو سبب تس محيط هاي عنفرت س دول كسوماليدو يدو ياسي مركي هرا إن قبل كسيتي عندنا يا مدولة ديجان كسومالي قلبيت كيسة لبكيسو إن بدن بسوجري إلا وقت الدولة دي كور رئيسي مصطفى محمد عمر وتاجنا
hase yeeshee cabdi maxamuud cumar oo waqtigii nimankii tigrayga ahaa ay ku cadaadiyeen gobolkan si xalkiisa loo dhameeyo inuu deegaanada galbeedka dhaca uu siiyo canfarta ayuu u saxiixay markuu u saxiixay cabdi waa kii deegaanka dhaaf cagjar yimid cagjar markuu gobolkaasi ama deegaanadaasi ay canfartu ay dadkii Soomaalida dil ka deyn waayeen iyo xidhay iyo cagajugleyn dadkina ay soo codsadeen inay xuquuq ku lahayn canfartuna ay xoog iyo cabur ku hayso ayuu cagjar go'aan wuxuu ku gaaray intuu golihiisa wasiirada fadhiisiyey waa waqtigu xilka uu ku cusbaa in gobolkaasi total xoog lagu soo celiyo ciidanka deegaanka Soomaalida iyo booliisku ay gacanta ku soo maamulka canfarta halkaas ka taliyaan ay kala cayriyaan iyo ciidankoodaba waa kay Soomaalidu saas bay weerarka ku qaaday waa la soo celiyay weerarkii haddana wuu joogsan lahayaa canfarta weerar may tahay waa dagaal joogto ah bulshada ku dhex baaba'aysa ee labada qori dhexdooda ku jirsan waa dad Soomaaliyeed marka dagaalku halkaas uu maraya welina halkiisa uu taagan tahay xaaladdu asaas waa hagaag laakiin waxaan ku weydiinayaa waxaa sheegtay in madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkiisa inay safar ku gaareen gobolka City iyagoo diri dhaba sii maray bal dhalinyaradan iyagu la sheegayo inay weerareen maxay yihiin dhalinyaradaas waxaa la sheegay inay yihiin dhalinyaro is-abaabushay oo gobolka City ka soo jeeda dhalinyaradaasi waxay u weerareen madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida waxay leeyihiin dadkanaga in la laayay mas'uuliyadooda koow ka ah maxaa sababta maxay keentay loo difaaci lahayd shacabkan bulshada dhalinyarada marka madaxweynaha waxaan xanaaq madaxweynaha ay kula dhaceen marka dhalinyaradaasi waa dhalinyarada gobolka iska abaabulaysay ee dagaalamaysay kadib madaxweynaha markay arkeen waxay madaxweynaha ay weerareenba waa hagaag marka dhalinyaradaasi waxaad leedahay waa dhalinyarada ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City oo markaas isagu socdaalkiisa ku marayo bal iyagu miyay markaasi ka qayb yihiin mise dhiirigelin madaxweynaha inuu dagaalka ku sii wado canfarta oo xaaladda lagaga sii daro ay doonayaan ma dhiirigelin ma noqon karto weerar lagu qaaday madaxweyne dhiirigelin ma waa dab may sii shidayaan waxay ku qad ciidanka deegaanka madaxweynaha ilaaladiisa way isdifaaceen way dagaalameen dhalinyaradii dhaawaca meesha ka dhashay dhimasha ka dhalatay wax faa'iido ay keenaan ma ileen madaxweynaha waxaad dhiirigelin ku leedahay madaxweynaha inaad la kulantaan oo wax u sheegtaan oo horumartaan ciidanka deegaanka oo goobaha ay colaadu ka sheegtaan ama goobaha ay waxyeelada soo gaaraysa dadka rayidka inaad dawladda u iftiso laakiin aad dawladda dad weerarto dawladda aad qudhaad maxaa lamid ah kuwa soo weeraray lamid baa tahay marka maamulka canfarta iyo siyaasiyiin gobolka ka soo jeeda yaa loo malinayaa inay hawshan ka dambeeyaan in madaxweynaha deegaanka la weeraro oo madaxweynaha la cabsi geliyo oo madaxweynuhu inuuna gobolka ku sii socon karin oo totally una gobolka sii dhex geli karin gobolka canfarta gobolkan City aan dhahe halmaan hadal kuma jire inuuna sii geli karin yaa la tusaya taas marka waa madaxweynuhu halka ayuu dhaafin ciidamo badan ma madaxweynaha la socdo kumanaan oo ciidanka madaxtooyada la socda marka waxay diideen madaxweynuhu inuu arko dhibaatada meesha ka jirta iyo rafaadka iyo dadkan soo qaxtiro intay leeyihiin inuu madaxweynuhu go'aan qaato oo ciidan halkaas ka howlgeliyo oo gobolkaas dagaal ka qarxay diideen marka madaxweynaha cabsi gelin madaxweynaha lagu sameynayo iyo siyaasiyiinta gobolkaas iyo dhalinyarada soo aaween waxana waa qorshe ay ka dambeeyaan siyaasiyiin gobolka u dhalatay oo ku sugan Addis Ababa waa hagaag bal deegaanka Soomaalida intaysan arintan dhicin waxaa la xasuustaa 2 toddobaad ka hor in ay markaasi weerar ku soo qaadeen kooxaha argagixisada ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya qaarkoodna nolosha lagu qabtay bal arintan maxay kaga dhigan tahay Mustafa Maxamed Cagjar oo isagu hogaaminaya dowlad deegaanka iyo waliba dadka Soomaaliyeed oo markaas isagu hormuudku u yahay bal arintan ma noqon kartaa waji kale oo kaga furmay dhanka iyo gobolka City oo markaas canfartu inta badan ay dagaal kula jireen habacsanaan dhanka amniga miyaa jiri karta way dhici kartaa deegaanka Soomaalidu waa deegaan iska sabool dadkiisu ay sabool yihiin marka colaadahan hadda faraha badan ee xuduudaha ka furmay Mustafa Cagjar dhibaato badan bay u keenaysaa sababtoo tay madaxweynihii gobolka dagaal buu galay dagaal xuduudaha la galay oo Soomaaliya ogtay deegaanka Soomaalida ugu yaraan lagu qiyaas 2000 kilomitir in xuduud dheer deegaanka Soomaalida uu la wadaago Soomaalida kale marka deegaankaas ciidanka xuduud deegaanka Soomaalida ciidankii dhan waxa laga howlgeliyay 2000 kilomitir geed kasta ciidan askari baa taagan liyu booliska si ay xuduudda nimanka uga soo galin nimanka eerka weerarkii ay wadeen waxay isku qadbay halka markay dagaal ka qarxo waxay isku dayeen dhul kale oo fursad oo dhul jiha kale banaan inay deegaanka galaan go'aankoodan waxa inay deegaanka galaan dhul deegaanka buuran dheer bule dhul qowiyoon la gal kara weligood laga saari karin marka si dhulkaas loo waso yaa ciidanka deegaanka 2000 kilomitir yaa ciidanka saa loo safay waa hagaag marka deegaanka caqabad bay ku tahay madaxweynaha caqabad weyn way la kulmayaan waa hagaag laakiin ilaa iyo haatan wararkan helayno waxay sheegayaan in madaxtooyadu aysan ka hadlin weerarka lagu qaaday maxay iyagu kaga aamuseen maadaama la ogyahay in madaxweynaha marka uu safrayo lala wadaagi jiray warbaahinta halka uu marayo iyo waliba qaabka wax u socdaan arrintaas waxaa keenay inay diblomaasiyad tahay aan malaynayaa sababtoo tahay deegaanka Soomaalidu gobolkan City dhibaato badan baa ka jirta
hore waxa u jirtay rag saraakiil oo ugaraan 9 korne lagu tilmaamay oo saraakiil oo tagay oo gobolkaasi u socdeen dhaxda loo galo la laayay oo si shirqool loo ciidamo jooga gobolka ay u socdeen oo ciidamo laga diray saraakiil laga diray gobolka ahayd marka deegaanka Soomaalida gobolka maamulka Diridhaba iyo gobolka City Anfarta xuduud dalale gobolkaasi gobol ma aha si sahlan lagu gali karo waa goob colaad dad waxa jooga inta badan deegaanka Soomaalida aad u nacab marka shirqoolasaas laga baqayo madaxweynuhu si kadiis ku gala gobolka gudihiisa waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa shida oo markaasi nala faahfaahinayay nala faaqidayay xaalka ugu dambeeyay madaxweynaha safarkiisa iyo waliba weerarka lagu qaaday wixii ka soo kordha halkan ayaad ku daawan doontaa saaxiibayaal mar kale soo dhawaada channelkana subscribe sara muuqaalkana la wadaaga saaxiibada aan helin xogihii ugu dambeeyay dowlad deegaanka iyo waliba safarka madaxweyne Mustafa Maxamed Cagjar adigoo muuqaalka like gareynaya kuna sii share gareynaya baraha internetka ee saaxiibada ku xiriiraan haddii ay noqon lahayd barta Facebook iyo waliba aalada WhatsApp-ka tani kulanti dambe intaan dib ugu kulmayno warbixin iyo warar kuwan ka duwan waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo.